saddex nin oo askari ay yimaado hal nin oo labada yaqaano oo horkacaayo mi fahamtay waali mobilka liga qaatay wixii oo dhan markii liga qaato anuu awood leh isticmaalaya waxa la sameeyay in anigii wato gaari liga qaato dadku dhan is dhaxgalay shaqmaaka waxa lagu dhahay saaxiibka hadii aragtay badbaadintiisa waxa u baahan tahay waxaan noo soo gudbi mi fahamtay anyway uu gudbi accountiga xataa qaado dhahay waa haystaa mi fahamtay dhahay waa haystaa accountiga xataa mi fahamtay wax walba uu ismeeyahay isla hada video isoo du video u duway mi fahamtay markaas inuu YouTube ninkii soo fadhiisto wuxuu dhahay 24 saac inuu raal gareyn soo duway video isla haweenkaas loo duway maalinta ku xigtana accident uu kale video hada aragteen haween waa mi fahamtay waxaana ku qasbay videogaasi anigoo la haystay oo wallahi billahi talaahi markii sharmaaki videogaas iyo codadkaasi ninkan u sameeyay wuxuu rabay aniga soo daay deeq darajo ninka la dhaho waa kan walaalkay ruma waa nin saaxiibkay mar walba garab noo ah oo darteen dhibaato iyo wax walba maray ani waxa aan shaashadaha ugu daba jiraan dhii sheegaya horta deeqow walaal bal adiga hadalkay noo furo wax aad ma santahay neew hadalka Soomaalida dhan waxa dhan way u yahay xukumi fan xaqiiqda hadii la hadlo hadal badana ma fiicno sax xaqiiqda dhabta isee wax walba u jiraan way arkeen wayna la socdaan horta fahanti muhiimadana hadda hooda horta sharmaaki asagoo go'aan gaaray inuu hadlin inuusan ninkaas hadin buugiisa dhan xiro lagu kalifay oo YouTube ka taa haduu helayo ama awood u haysto uu jabsan karo ata haduu jabsada ata uu dhahay go'aan uu ka gaaray inuusan hoos keenin sida hadda anaga loo soo kalifay waayo anaga haddan ma jeclin dad waxa rabnaa aan hayna horumar gaarno oo fankeena aan ku fiicanahay haddaba walaalkay maxaa kalifa waxa kalifa horta sharmaaki inuu ninkaas horgeeyo uu ka codsado inuu dhaho walaal macaan oo ku bariya YouTube ka taa qaado fiiriya hadduu YouTube muhiim u ahayd hadaa ku shaa wuxuu dhaxtaa YouTube ka qadaa ninka walaalkay amani gali ninkaas amaan gali nin dhalinyaro ah hamiya leeyahay ficina hanaga reebin wuxuu u leeyahay marka xaqiiqda dhabta aan sheegay xaqiiqda dhabta ama wuxuu u leeyahay waxay ahayd anigu waa la soo weerar exactly shaati dawlad ayadoo la isticmaalayo wax report in maliga soo qorin sax waa la soo wacay waxa uu dhahay halo ninkaas dacwo ka ah sida uu dhaqso badan waxa la rabaa ina kala noqoto dacwooyinka akoontigiisa ka xigtayna u soo celisid ali uu dhahay ani waxa ku dhahay anyway ninkaasi meel fog u jira ana xaq u leh wadanka joogo ma fahantay asaana wax walba Soomaalida qofkii wadada maray aweydiisay yaa qaldanna waa ku sheegayaan everything Facebookiisa iyo wax walba soo bandhigay awood iyo xumaan iyo wax walba inuu dimacsiyo ninkaasi hanoo hiilin una qaldan yahay su'aasha kale uu igu dhahay ninkaas kari waxay ahayd adima aniga isu dacwada waa may so ninkaan ka soo reeyay dacwadiisa marka ninkaan xaliyo aateedada xalina ani marka already waxaan dareemay confidence oo hadii batan la xalina caadi way ninka hada okay way hay way ku dhahay anyway maalintaas waxay ahayd 6 saac 7 saac meelahaas ahayd markay soo wacay waxa hadana la imaado face to face xirig ay gaarayso waqtiga markuu ahaayeen hal saac weynimo la galir waa la imaaday like qof walba meesha joogay uu og yahay markii la imaado aniga wax oo reeli dhaha waxa waaye saddex nin oo askari ay yimaado hal nin oo labada yaqaano oo horkacaayo mi fahamtay oo like that operation u socdo kala you know that anyway dadkaasna mission mar walba mission inay fuliyaan iyo hawlo kale way maahan report case iyo arimaas iyo dada ku xilsaaran oo loo gudbiya mar walba mi fahamtay aniga wax ma dhicin wax qalad ma sameeynin anyway aniga waali mobilka liga qaatay wixii oo dhan markii liga qaato anuu awood leh isticmaalaya waxa la sameeyay in anigii wato gaari liga qaato dadku dhan is dhaxgalay shaqmaaka waxa lagu dhahay saaxiibka hadii aragtay badbaadintiisa waxa u baahan tahay waxaan noo soo gudbi mi fahamtay anyway uu gudbi accountiga xataa qaado dhahay waa haystaa mi fahamtay dhahay waa haystaa accountiga xataa mi fahamtay wax walba uu ismeeyahay isla hada video isoo du video u duway mi fahamtay markaas inuu YouTube ninkii soo fadhiisto wuxuu dhahay 24 saac inuu raal gareyn soo duway video isla haweenkaas loo duway maalinta ku xigtana accident uu kale video hada aragteen haween waa mi fahamtay waxaana ku qasbay videogaasi anigoo la haystay oo wallahi billahi talaahi markii sharmaaki videogaas iyo codadkaasi ninkan u sameeyay wuxuu rabay aniga soo daay 3 good hours aliu haystay gaari dhaxdiisa mi fahamtay oo meel ka baxsan station ama meel dadka dambiyada gala loo haysta ma ahan meel kale gooniya liu haystay mi fahamtay anigoo shaati dawladda isticmaalay anyway xaqiiqda dhabta waxay tahay aniga like maanta hadii arimo qabiil iyo orod iyo ku jiri lahaay like bulshada joog lahaay
reerkeyga walaalahayga yaa dhexgal lahay like laakiin hadda arrin qabiil ma taagna meesha maanta garwaa joogaa like aniga oo halkan imaadaa wallahi billahi talaahi waxaa la isku dayay ma fahamtay asagoo dadka laga dhaadhicinayo programka oo sharma accountiga si qabiila lagu bixin waxaa watay ragga wada ogtihiin ma fahamtay waxaan aniga rabay in dhibaateeyo dhowna markii la dhibaateeyna in la dhaho sharma iyo tolkiisa iyo reerkiisa dileen laakiin arrinta saasmeen arrin qabiil madax isku geliyo waa la difaacay soo jeedna sax xawadka la garaacday ma fahamtay so maanta like wallahi billahi talaahi hal mar ya like walaal iyo tol iyo qof kastoo ila soo xiriir aniga mar walba xadaay out akatiin programkani program dhalinyaro u taalo waaye program youtubers iyo arrimahaasi waaye mi fahamtay so this like physical bullying like wax walbo adiga oo mailing ah oo wax walbo oo xun oo qof lagu sameeyo maanta ceel iyo xumaan laga qadaa lagu sameeyo mi fahamtay so markii adiga dadkaada iyo walaalaha iyo baalku ku kacayaan waxaa waaye markii aad la dagaalaysid shakhsi laakiin qof maanta oo dhan qabiil iyo wax xun dawada ku wato oo waxba ka jirin xaqiiqda ku sheega like dadku sheeganayo iyo arrimahaasi dhan maba ku jiraan right now hadda wuxuu madaxa ama xumaan u soo jiiday baayo farxiyo mi fahamtay oo Nairobi imaatay oo dambi inuu sii geliyo rabaa like inuu support ka helo dhankeeda ama like si loo difaac maanta hadda xumaantii uu weyneed uu nagu sameeyay aniga ma jecleen inaan soo bandhigo mana rabin aan ka dhaxgal xogahay horta waa idin salaamay horta hadda isweydiinaysin maslax mideeye sababta wala aaminsan yahay mar walba oo macnaheedu uga hadlay arrinka maxay tahay horta aniga ma aaminsani aniga waxaan mar walba la taaganahay walaalkay oo garabkiisa ay dhibaatana ku jiray wax walbana way dhaceen aniga shil markaan Djibouti ka imaanay ani Soomaali run adin sheegay Soomaali markaan imaanay aniga sharma mu imaanay aniga ku markaan wadanka imaanay ani xamra imaaday reer xamra u imaaday jacayl iyo walaalnimo iyo kalgacayl uga imaaday waxa waaye shalay marka sharma waday Djibouti ay geeyay lama dhahayn afaara qabiil ay ka wadaan laakiin waa lagu faraxsanaa horumarkeena marka laakiin maanta billaana imaanay wax walba aan sameynay afaara qabiil iyo xasaab أنا حتى نكني وحوي نكن مركو ده تبغتيان ما تهاي ما حي أتهاي أدي أرنك هذا المال والوجود جواب يا قعنا لقيت جواب يا هو على قاسينا يا أنا قبل كهل دي ما حوجها اللي ما تشعلين أنا قدينا صحيح كجرب أو لما دينا بقى بتشرنا أنا مر الباحة كمر واحد أدي ما حلنا لكن وفهم واي أنا إلا هذا كجوبنا صحيح معنا طبعا walaalkay sharmaake oo dhibkiisa aniga u dul qaadan kar lahay oo xabsiga iga jiro oo macnaheedu meel aan ranadi aniga aan maalin walba arki lahay oo wax walba meel walba u maraayo oo dhibaatadiisa aniga dhibkayga tahay xataa waxba cuni kari waaye intuu soo fadhiistay oo faanayo u dhahay maga ka bixiyay saaxiib ani ciila guriga ugu dhaxway ma faan waxaasoo kalena wax loo dul qaadanay ma faan haddana iyadoo saas tahayba hadduu ninka ragga nin ragga ma ka bixiyo xataa waxa weeyday wax la isku sheegta maaha hadii rag way isku dhacaan way kala baxaan laakiin in la kala hadho anigu dumarnimo aan arkaa aniga meeshaan ka imaaday dhaqan oo male waxaas oo kale in waxaas oo kale afaaraha la galay mafaan haddana waxa deeq ugu sheegaya walaal macaan dadka waxay duran hadhaan aniga deeq nafteeda ka aaminsanahay deeq darees waa saaxiibkay waa walaalkay sharmaaka soo saaxiibkay iyo walaal au noqday asagana walaal u nahay Djibouti inta xamar joogay ilaa Djibouti inta imaanay asaga yahay asaga wax ii qabanay asaga aaminsanaa wax walba oo iga horimadana asaga u sheeganay waxa waaye horta dhibka u sharaan deeq soo maran dhibka aniga soo maray waa isku mid waayo walaalkay way qalbiga ka dareemaya sharmaakana waxa ku iisiyo waxa waaye ciil aniga ba oo ilaha waxaan u ooyilahaana waxa waaye aniga walaalkay ruma oo inta nafsadiisa baxar ay khatar ku jirto aniga ما في فكرة يا صاحبي معانا والله يتوب عشان وحاول هنتي وحاول أدونك إيسارنا حتى أدي لي ذا البواب بحلا صارتوا قف يتوب إياه الحق إياه واحد سبب المال لكن قف بلا آذن أنا ليش يسار أيام ولا بيجي مهم سن دقيقة صاحب ذاتك مرة البحر إني تشبيه نفهم لكن أنا هراء صعنا واحد نقل قال كذا مالها أنا هراء مركينا anyway حقيقة لبتة أنا عيلي على حمتي وحمي على الموسمي أنا أود إنه استعماله anyway وإلى هذا ما يصير سعتها وردتكي أرنت مركي دعاين جوجا هذا اللي يصير سنوية أو اللي ما دام الدق تلعفن كان أقوى الله تلعفن عدك الغدو وأداء لهيت مي فهمتي ولا شيء ده أو like لو دواتنا اللي هي محا like عدكاس أداء دوبتي وحنا بلن وأنا سلوا جدين إن إبرتي إن دواتي like أنا ولا سوا هذا like
like waxa aniga damacsanahay like ma ahan like inaan dagaal galo inaan qababacd damba sameeyo sababtoo tahay nin rajadiisa dhan ee tahay inuu dhalinyaro ciiro oo like uu macnihiisa dhan ee ku salaysan tahay maanta oo dhan inuu dad la xumeeyo hadee walaal iyo waalid warku waalidkiisa ku laftii uu sheeganayo naftirkooda uu kala jarjira uu xumeena isku dira qaar uu lacag ku bixina inuu isdeeyay ana wuxuu dhahay hormuud iyo dahabshiila meel saar aadima ku daaha wallahi billahi ina beenka sheegay wuxuu dhahay hadda like lacag ku bixina afaaray arimaha hada sii gashid so aniga like waxa arkay Nairobi inay aniga qatar saayid ii tahay mi fahamtay qof loo dacween meeshii loo orday loo dacwoon lahay dawladda dhan haddii balay soo xaraay waxa go'aansaday aniga inaan